xildhibaan Hirshabeelle waxaan ka soo jeedaa dadka Buuleburta degan iyo meelo badan oo kale ee gobolka Hiiraan ah sida magaalada madaxda Beledweyne degmada Maxaas Buuleburta Jalalaqsi Moqokuri Itoobiya dadka degan ayaa ka soo jeedaa si fiican deegaan doorashadiisu Buuleburta waa tahay Maxaas waa tahay Beledweyne waa tahay martabaan qayb ka mid ah waa tahay Moqokuri waa tahay Jalalaqsi waa tahay intaba waxaa nasiib darro ah in xildhibaano waxay Soomaalidu ku mahmaahdaa la garayay laxdii canugiina la garo canugii wuxuu ordayaa laxdiina waxay ordaysaa canugii wankow maxaa ku eryayaa Soomaalidu ku mahmaahda si fiican حاول جدا مدن حلبان dababarloborloqa wanku ordahaa la yidhi waxaan ula jeedaa dadku asagoo dad wada ah inuu hamba yeesho ama xildhibaanada qaarkood ay hamba yeeshaan ay ixtiraam yeeshaan ay maqal yeeshaan ay indha yeeshaan ayaa loo baahan yahay hadday ixtiraam yeela waayaan ay aqli yeela waayaan ay xusuus yeela waayaan ay gara waayaan waxa leesla leeyahay iyo waxa la kala leeyahay iyo qof wax kasta ay wuxuu leeyahay hadday gara waayaan waaga la garadsiina waxaan ula jeedaa degmada Buuleburta ayaa waxa tagay Hirshabeelle wasiirkii arrimaha gudaha muddo joogay waxa tagay madaxweynihii Hirshabeelle iyo qolo oo wato xildhibaano iyo wasiir uu ku sheegay ayay tageen meeshaas Buuleburta la yiraahdo in badan ay go'doonayeen si fiican wax u furan oo jidu aysan jirin ee shacabka degan iyo waxgaradka degan dhibaato ku haysay odayaal wax dhabdhaba ee shacabkaas u dhashay ee ka dhashay ee dhex taagan har iyo habeen dhibaato ay ku dhaxaysa ayaa meesha joogay waxa loola tagay dulmi aad loo soo falkiyay oo meelo badan ka socda ayaa meesha lala tagay madaxweynaha iyo qolada wasiirada waa uu leeyahay xildhibaanada ay la tageen wax ku dhinta wax dan uu kama geli wax ku dhaawacma wax dan uu kama geli wax ku baahan wax dan uu kama geli wax ku go'doona wax dan uu kama geli inay dadkii shacabka idaacad ka deeyaan ee ugu hajabaan waa la xirxiraa cidii hadasha waa nasiib darro waxaa nasiib darraa guri nin leeyahay iyo xooluu leeyahay iyo carruur leeyahay iyo dad nin leeyahay in nin kale iyu dhex tago oo ku weeraraana waa nasiib darro waa wax la mida kuma hadlin dadka xildhibaanada sheegay ama mas-uuliyiinta sheegay meesha tagay aqoon kuma hadlin caqli kuma hadlin dadnimo kuma hadlin dhaliyo kuma hadlin mas-uulnimada iska dhaafba iyo xasaalad xildhibaan u ilaasho inuu ku hanjabo waa xixida cidii hadasha oo handado dad shacab 20 sano go'doonahay inuu handado waa wax nasiib darra dastuurka Hirshabeelle kuma taal xeerka heesoodka Hirshabeelle kuma ka federaalkana kuma taal waa dimbi waxa la wixii ku gaara hadduu degmadaas dib uga hadlo ama hadda haddii loogu tago dib wixii ku gaarana hay'adaha caalamiga ah dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga ah waxa la wixii ku gaara in uu ka mas'uul yahay marqaatina laga ahaado wareysigiisa la dhigto inuu handado dad shacaba ee 16 sano goodo ku ah degmadaas Buuleburta in ninkaas xildhibaanka uu handado oo yiraahdo ma hadli kartaa wuxuu ku daray warkiisii hadda baahi waa mudaharaadi kara jidka la furo mudaharaadi kara ayuu ku daray warkiisa baahina weligiis wax ugu matarin nolona wax ugu matarin diinna wax ugu matarin bini'aadanimana wax ugu matarin muslimnimana ugu matarin ahalnimana ugu matarin inuu ka hadlo dadka handado wixii kalifay ayaa laga rabaa mana loo dhaafay wixii kalifay inuu dadka handado shacabka
intaas dhibaatadu haysay wareysigiisa waxaa ku jira markaan la tashtay xildhibaanada iyo madaxda Hirshabeelle iyo laamaha amniga waxaa noo soo baxdo uu leeyahay waana wasiir ku-xigeen naftiisana ka soo jeeda gobolka Hiiraan marka miyuuna ka hadli karin laamaha amniga iyo wixii nabadgelyada kama hadli kariyo geliya in waxa qaarkood ay naga soo baxaan waa nasiib daro ama laga keeno wax qaarkood yana lagu kasbeeyo waxa qaarkoodna laga keeno waa nasiib daro haka soo jeedo gobolka kama soo jeedo bandhigna mali laakiin meesha qofna uga dhiman intii baahida uga dhimantayna cid ugama baaha intii col uga dhimantay col ugama dhiman inta dhibaato ku hayso qofkuma lahan inuu ka hadlaa dunuubaha dulmiga ah inuu ku hadlado shacabka dulmi ah inuu tagaa dulmi ah asiga iyo wixii geeyaba waa dunuub iyo dulmi ay ka shaqaynayaan waxaan leeyahay waa qaa'imiin shacabka hadada waa qaa'inimay ku tageen tuuginimay ku tageen waxay ku tageen dhibaato kow ah inay shacabkii kusoo qabtaan ka tageen jawaabteedana waa helaya biidni illahi kariim waa helaya jawaabteeda haddaysan dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga aysan soo faragelin in dad dhibaata haysay 16 sano in xadkaas lala maro oo la handado oo waxna aan loo tarin ceel aan loo sameyn iskuul aan loo sameyn amni aan loo sameyn dib u heshiisiin aan loo sameyn waxbarasho aan loo sameyn wax haba yaraatay waxtar kale iska dhaaf waxa hay-adaha caalamiga ay keeneen afarta koona la keenay xataa aan la geenin ashada la geenin oo wax loo taray aysan jirin qofkii dhibaata waxaan kuu sheega aadaan u caraysanahay been sheegi maayo dadku waa dadkaan ka dhashay meeshuna waa meesha ka dhashay u dhashay dulmidoon iyo dabasaldhaqayn lagama rabo cid ka rabtaana ma jirto ciddii dulmidoon iyo dabasaldhaqayn u tagtana waa la isku arkaa meesha waana la isku tegayaa ana ka soo baxaana le ha ka soo baxaano dadaa ku dhintay dhibkay sameeyeen dad ku dhintay kuwaa ku dhaawacmay dhib kale inay usii horseedaan oo kuwa kale ku dhintaan meesha u joogaan ha ka soo baxaano in badan aan lahayn federaalka u sheegnay waxaan u sheegnay xildhibaanada waxaan u sheegnay hay-adaha caalamiga okay ugu dambeyntii dadka shacabka ku dhaqan degmada Buuliburto iyo maamul goboleedka aad ka tirsan tahay ee Hirshabeelle aad xildhibaanka u tahay maxaa u soo jeedinay ugu dambeyn Hirshabeelle waxaan u soo jeedinay hadday bini'aadam tahay waxaan u dooranay inay dadka wax tarto amni tarto wax u qabato iskuul u dhisto biyo ka xirto nabadayso amni u samaysan u soo jeedin uma dooran inay dulmi iyo dil iyo jidgooyo iyo dhibaato iyo inay biyo ku soo fatahdin iyo xumaan ka sii tiro badan iyo inay wax wada dhacdo uma doorana ha soo dhaafaa dhibaataan u dooraneen dunuuntaasina waxbaa ku leenahay aan Hirshabeelle u soo jeedina oo u soo jeedina madaxweynaheeda oo u soo jeedina kuwa wasiirada uu ka dhigtay dadka meesha degan waxaan leeyahay waxaad isla soo deganeedeen in ilaahay xisaabi karo tiro badan waa isdhasheen waana isla dhalateen dilmudoon iyo dabasaldhaqayn way idiga soo tagayaan daliina aqoonsada waa isku soo waxbaad qaybsan jirteen qaybsada geed hoostiis taga nabadda ka shaqeeya isku samra dhibaatayda haysee dhibaatadana ilaahay subxaanahu wa tacaala adiga kor qaad ilaahay aan ka badaya intaas alle aad iyo aadan kaaga mahad celinaya xildhibaan